بسم الله الحمد لله وين السلام يا قيادة شرفت الرباط وين السلام يا عنكم السلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامك بعد واحد دور يا إن عن كارلو نغنى ذا عن كوار كي مدحوين فرماجو أنت هذا مدحوينها ها marka dhaqankiisa fiiriso waxa ku soo baxay madaxweynuhu inuu doonayo ama siyaasadda uu ku shaqeynayo ay tahay in siyaasadda lagu kala adkaado oo loo maro wax walba oo markaa uu isleeyahay oo u adkaan kartaa hebel ama heblaayo oo adkaan karta uu isleeyahay in loo maro rag iyo dumar oo kala socday tusaale yar haddaan soo qaato madaxweynihii waxaa jirtay madaxweyneyaal asaga keenay oo madaxweyne sheekh shariif uu ka mid yahay keenay oo soo magacaabay isagoo la aqoon warsiisa isagoo istu yimid ra-iisul wasaare uu ka dhigay maanta farmaajo waa ninkii isu wuxuu yihiin dadka walaacadu madaxweynahaasi ka gaartay inuu dhaar maro inuusan iska celi doono hadduusan sida uu ku socdo uusan wax ka bedelin madaxweynaha kale oo ah isna xasan sheekh waa ninkii wareegii labaad gacanta ka qabtay oo laba gacmood ay qabteen way dhaheen wuxuu malayn nin walaala laakiin mahmahaye waxaa jirta ay isticmaalaan beesha budullood oo hadda ka hor dhacday ninkii barbaarshay bahal nool ama ka baxsay ama boqna gooy leeyahay haddaba farmaajo ama weyn boqna gooyna ama weyn ka baxsana labadaas mid noqonay saad u keenteen oo xilka saaxada siyaasadda u soo gelideen iyo sidii aad maaragtay ugu dhiibteen oo aad ugu tanasushay oo wareegii labaad iyadoo wareeg kala dhimaya aad tiri walaalkay xasoo hay labaduba laba gacmood qabateen waxa waaye arrintaas amaalkeeda ilaa haddeer ma muuqdo farmaajo inuu qabtay ama wax u dhow waxaan aragnay dhibaato iyo adigoo layna go'doominayo diyaaradaha wada laga celinayo laynku aflagaadaynayo warbaahintii dowladda iyo dhaqaalihii xoolihii qaranka laynku dhibaataynayo layna sumcadilayo ayaana maqalnaa waxa la yidhi mu'min laba jeer god lagama qaninaa la yidhi labadiina laba jeer nina waa ninkii keenay nina waa ninkii ku wareejiyey hal marna labada gacmood oo qabtay wey haddaba hadde waxaan ku talinayaa taxadir muujiya oo dhibaato saddexaad iyaysan ku dhicin farmaajo markaad siyaasaddiisa eegto weerarada uu qaadayay waxaa ugu weynaa midda uu ku qaaday siyaasiga caanka ah ee xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame uu ku laayay gurigiisii lagu laayay ciidamo qaranka ay leeyihiin lagu laayay ilaa hadda meel lagu sheegaan la aqoon waxaa kaloo jira iyadana dhinaca maamul goboleedyada ayagoon dhibaato la kulmay haddana axmed madoobe in weeraro ba-an lagu qaaday oo naftiisa halis geli karta lagu qaaday weerarada ugu badnaayo halkaa sida xoogga lagu socda intaasoo dhibaataa ujeeddada u maray waxa weye siyaasadda inuu uga adkaado dadka isleeyahay mustaqbalkay siyaasaddii kula geli karaan inuu ceebeeyo u dhibaateeyo haddaba midaa jirta oo dada waxay malayeen hadda madaxweynuhu ra-iisul wasaaraha muxuu usoo magacaabi waayey leeyihi ra-iisul wasaare muxuu usoo magacaabi madaxweyne farmaajo muxuu ula daahsan yahay muxuu saacadda dad badan ay isweydiinaya sababtuna waxa weeye farmaajo wuxuu raadinayaa ra-iisul wasaare xafiiskiisa ka shaqeeyu raadinaya ninkii xilka ka tegey xasan cali khayre wuxuu ahay madaxweynaha xafiiska ugu shaqeynayay amarkiisa ugu shaqeynayay wasiirka koowaad iyo madaxweyne iyo wax oo dhan farmaajo asaga isku ahaa howlwadeen uu ahay wiil uga baarisan arki maayo wiilkiina waa iska diray waqtigaa ka diray anugu madaxweyne farmaajo waa kula talinaya waxaan leeyahay hadda ra-iisul wasaare waqti baa iska lumine gabar dumaashada usoo magacaabo xilka ra-iisul wasaarenimada usoo magacaabo gabar dumaashada iyadaa caanamadaadida usoo magacaabo
oo qof xisaabtamaya oo ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda inuu wax ka qabtan rabo oo dadka inuu isu keenan rabo oo hagaajiye raba ma uu suuragelayso waxaad rabto iyo sida u dhaqankaada wax suuragelaya ma